kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan u diyaar garooba wararkeena maanta waa Isniin taariikhda ay ku beegantahay 24 bisha Agoosto 2020 qodobada wararkeena ugu waaweyn waxaa kamid ah xog culus oo ku saabsan ciidamada ilaalada madaxtooyada la wareega amniga ra'iisul wasaaraha cusub iyo guriga uu degi lahaa wararkii ugu dambeeyay ciidamo weerar ku qaaday guriga taliyaha ciidamada Haram Cad ee ujeedka ka dambeeya Axmed Madoobe oo hal sabab dartood maanta Garowe u gaaraya iyo kulan la qadan doono madaxweynaha Puntland Dani ciidamada danab oo howlgal qorsheysan oo ku dileen hogaamiye sare kamid ah al-shabaab ka fuliyay Shabeellaha Dhexe xog cusub oo laga helayo sababta dawladda ciidamada u geysay magaalada Jowhar dawladda Kenya oo dib u bilowday dhisidda darbiga ay ka dhisay xadka Soomaaliya maamulka Taiwan oo qaaday talaabo kale oo ka careysiin karta dawladda Soomaaliya iyo madaxweyne lafta garan oo amar la yaab leh ku soo rogay wasiiradiisa qodobadaasi kuwa kale ayaa qayb ka saaxiibayal wararkeena kamid noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe inoo dhig gambalelkana taabo si ay kugu soo dhacaan wararka iyo waliba macluumaadida gaarka ee halkan aan ku baahino aan ka hormar warbixinta ugu horeysa ee warkeena wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsanaa qorshaha magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub iyo kulamadii ka soconaya madaxtooyada iyo xogaan Helen oo sheegaya in ciidamada ilaalada madaxtooyada ee Soomaaliya loo yaqaan Koofi Cas ay la wareegeen amniga dhismaha u degi lahaa ra'iisul wasaaraha cusub ciidamo ka tirsan ilaalada gaarka ee madaxtooyada Soomaaliya loo yaqaan Koofi Cas ayaa la wareegay amniga guriga u degi lahaa Ali Maxamed Geedo shakhsiga sida weyn loogu saadaalinayo loo magacaabi doono xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya guriga siyaasigan oo ku yaala xeyndaabka madaxtooyada Soomaaliya ayaa la geeyay ciidamo badan oo Koofi Cas madaxtooyada ah kuwaas oo la wareegay guud ahaanba amniga iyo qoyska Ali Maxamed Geedo maadaama wararka madaxtooyada dhowrkii cisho ugu dambeeyay sheegaya in ay dhamaatay wada tashadii ugu dambeeyay suurtagal ay tahay in wareegtada kaliya ay soo baxdo lagu magacaabo Ali Maxamed Geedo sida wararkan Helen sheegay Ali Maxamed Geedo ra'iisul hore Soomaaliya diiday inuu ka soo guuro guriga uu degaya oo ah meel ka baxsan gudaha madaxtooyada xubnaha ugu sareeya mas'uuliyiinta madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul hore dhammaan ayaa deganaa madaxtooyada isla markan waxaa la sheegay in ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Ali Maxamed Geedo inta loo magacaabin ka hor la doonay in la soo dejiyo guriga uu ka guuray Xasan Cali Kheyre oo kaasoo kalsoonida baarlamaanka kala laabteen gurigiisa ku yaal gudaha xeyndaabka oo gudaha madaxtooyada madaxweyne Farmaajo ku jira saacadii ugu dambeeyay ku saabsan magacaabista xilka ra'iisul wasaaraha cusub ayaa waxaa si aad baraha bulshada loo hadalaya in xilkaas loogu wado in lagu magacaabo Ali Maxamed Geedo oo hore u soo noqday ra'iisul wasaare lana aaminsan yahay inuu yahay nin miisaan ku leh siyaasadda Soomaaliya garan gobolka Banaadir iyo wali maamulada dalka ka jira sidoo kale waxa jira shakhsiyaad kale in si weyn loo hadlayo kuwaas in laga yaabo in siyaasadda October qura ayna loo magacaabo xilka maadaama qayb ka yihiin dadka sida weyn baraha bulshada aad loo hadalhayo muddada madaxweynaha loo qabtay inuu ku magacaabo xilka ra'iisul wasaaraha ayaa waxay ku egtaa maalinta bari oo Arbaca taariikhduna ku beegan 25 Agoosto waxaana la sugayaa waana maalintii xilka laga eriyay Xasan Cali Kheyre oo 30 cisho laga joogo madaxweynaha ayaa fursad u haysta 24 saac soo socota in uu ku dhawaaqo ra'iisul wasaaraha cusub ama inuu baarlamaanka weydiisto waqti dheeraad ah in la siiyo si uu u soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub wararkii ugu dambeeyay ciidamo ayaa weerar ku qaaday guriga taliyaha ciidamada Haram Cad ee Muqdisho taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya sida gaarka u tababaray ee loo yaqaan Haram Cad ciidamo ka tirsan kuwa asluubta ayaa xalay isku rasaasayay israasayn kooban ku dhaxmartay degmada Waaberi ee gobolka Banaadir israasaynta labadan ciidan ayaa ka dambeysay kadib markii askari ka tirsan ciidanka asluubta ay weerareen guri uu degaya taliyaha ciidanka booliiska gaar ahaan ciidamada Haram Cad Farxaan Maxamed Qaroole ninkii kaasoo degan degmada Waaberi goobjigal u waramay warbaahinta gudaha ayaa sheegay in ciidankan ilaalada taliye Farxaan ay iska caabiyeen dableedii ka tirsan ciidamada asluubta ee weerarka ku soo qaaday waxaana la sheegay in mid kamid ah askarta ciidanka asluubta gacanta lagu dhigay wali lama oga sababta keentay in weerar lagu qaado taliye Farxaan Qaroole oo haysta ciidanka sida gaarka u tababaray Haram Cad garan waxaana la sheegay in guriga deganaa ay weerareen 6 kamid ah askarta ciidamada ayaa la sheegay in weerarkan ay fuliyeen kuwaas oo hadda ku jira xarunta dambe baadhista ee CID-da su'aalna la weydiinayo 60 askari ee weerar guriga taliye Farxaan Qaroole ayaa kamid ah ciidamada asluubta kuwaas oo ciidamadu ay qabteen su'aalo weydiinna hadda ay ku soconayso xarunta dambe baadhista ee CID-da dhanka kale ma jirto wax warar ka soo baxay saraakiisha ammaanka ee dawladda Soomaaliya ku saabsan weerarkaasi dhacay ee lagu dilay oo weerarka lagu qaaday taliye Farxaan Qaroole
xog cusub ayaa laga heliyay sababta dowladda Soomaaliya ciidamo ay u geysay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ciidamo ka tirsan kuwa kuwaandooska Soomaaliya doonab ayaa shalay gelinkii dambe gaaray magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle sida ay sheegay warar lagu kalsoonaan karo ila wareed ayaa sheegay in ciidamada kuwaandooska dowladda ay wateen gaadiidka nooca dagaalka isla markaana safar dhanka dhulka ay kaga ambaxeen magaalada Muqdisho iyagoo gaaray magaalada Jowhar waxayna mareen wadada xiriirisa Jowhar ee Muqdisho sidoo kale ciidamada kuwaandooska xoogga dalka ee Danam ayaa markii ay Jowhar tageen saldhigyo ka sameeyeen banaanka iyo gudaha magaalada kuwaas oo ammaanka magaalada Jowhar kor kala socda wararku waxa intay ku dareen ciidamada halkaas u tageen sugitaanka amniga caasimadda Hirshabelle iyo sidoo kale in ay dowladda federaalka Soomaaliya ay halkaas u dirtay wali ma jirto wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha military oo ku saabsan ujeedka ciidamada halkaas loo geeyay ciidamadan ayaa sidoo kale howlgal qorsheysan ka wada wadada laamiga ee xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar oo al-shabaab halkaas dhowr jeer hore xildhibaano gudoomiyaal Israa'iil ciidan ay ku dileen taliyaha guutada 16aad ee kumaandooska General Ismaaciil Cabdi Maalig ayaa sheegay in ciidamada halkaas loo geeyo howlgal sidoo kale uu sheegay deegaanka Ceel Gaal oo ku yaala Shabeellaha Dhexe ay ku dileen hogaamiye sare oo kamid ah kooxda al-shabaab ma jirto faahfaahinta ka baxsan oo ku aadan ciidamada iyo ujeedka halkaas loo geeyay Axmed Madoobe hal sabab darteed ayuu maanta u gaariyay magaalada Garowe caasimadda Puntland madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe ayaa maanta ku wajahay magaalada Garowe caasimadda maamulkaas isagoo shalay dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose madaxweyne Axmed Madoobe waxa safarkiisa ku weelinayay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka isagoo saacadaha soo socda la filayo inuu gaaro magaalada Garowe xarunta gobolka Nugaal ujeedka madaxweynaha ayaa waxa uu yahay sidii kulan qaas oo la qaadanaa dhigiisa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani ayagoo ka wada hadli doona arrimo kala duwan oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka labadaasi maamul ayaana ka qayb galay shirkii Dhuusamareeb 3 oo farmaajo iyo qaar ka madaxweynaha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay ku yeesheen kaas oo ugu dambeyn laga soo saaray nooca doorasho ee dalka Puntland iyo Jubbaland ayaa cadeeyay mowqifkooda inay ka soo horjeedaan qodobadii ka soo baxay shirka ayagoo sheegay in dowladda Soomaaliya ay fuli weyday dhammaanba Dhuusamareeb 1 iyo 2 heshiisyadii lagu gaaray si kastaba dowladda Mareykanka ayaana qaswadayaal ku tilmaamtay labadan hogaamiye Puntland iyo Jubbaland kuwaas oo diiday ka qaybgalka shirkii Garowe wali wararkan ayaa dhageysanaysa saaxiibayaal ayaa daawanaysan qodobo kale ayaa inoo haray oo wararkeena ku saabsan dowladda Kenya waxa la leeyahay markii waxay dib u bilowday dhisidda xadka Soomaaliya Kenya ay la leedahay oo ay ka dhisayso darbigii waqtiga dheeraa ee aad loo hadlayay dowladda Kenya ayaa 27 la soo dhaafay ciidamo badan oo dheeraad soo dhabtay xadka la wadaagta Soomaaliya waxaana lagu soo waramay inay bilaabeen qorshaha dhismaha darbiga dheer ee Kenya ay ka dhisayso xadka kala qaybiyaha Soomaaliya iyo Kenya ciidamada la dhigay xadka ayaa la sheegay inay waardiye ka noqonayaan dhismaha darbiga ee laga dhisayo degmada Ceel Waaqe gobolkaas Godo oo dhanka Soomaaliya Colonel Aadan Rufle oo kamid ah saraakiishii hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kuna sugan gobolkaas Godo ayaa sheegay in Kenya ay soo celisay dhismaha darbiga isagoo tilmaamay in loo baahan yahay in laga hortago qorshaha sharci darrada ee Kenya ay ka wado gudaha Soomaaliya ay ku dhisayso darbiga waxa uu sheegay waxaan doonaynaa in shacabka Soomaaliyeed ay dowladda shacabka Soomaaliyeed inay iska celiyaan Kenya marka la bilowdo dhismaha darbiga ayuu yiri Colonel Aadan Rufle dowladda Soomaaliya ayaa hore kaga hortimid dhismaha darbiga xadka ay ka dhisayso Kenya waxaana madaxweynaha dowladda Soomaaliya farmaajo dhigiisa Uhuru Kenyatta arrintan kala hadlay sanadkii 2012 balse lama oga waxa haatan Kenya ku dhaliyay in markale ay bilowdo dhismaha darbiga Kenya ayaa sababta u dhisayso darbiga ku sheegtay sabab la xiriir dhanka ammaankeeda iyadoo ka baqaysa in al-shabaab weerarada ay Soomaaliya ka soo abaabulayso in uu ka yaraado dhibka ay weeraradaasi ku qabto ugu dambeyn daawadayaal Cabdicasiis Laftagareen madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa amar la yaab leh ku soo rogay maamulkiisa iyo waliba xildhibaanada iyo wasiirada maamulkiisa xog weyle channelkan ayaa sheegay in madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen xubno kamid ah golihiisa wasiirada saraakiisha ammaanka maamulada degmooyinka iyo kuwa gobolka amar ku bixiyay in aysan wax warbixin ah ka bixi karin xaaladda Koonfur Galbeed iyo xindaabka goobaha dagaalada ay ka dhacayaan sidaan xogta kulli waxay sheegeen xubno kamid ah baarlamaanka la sii amar ah inaysan sii karin warbaahinta wax hadal ah oo ku saabsan xaaladda Koonfur Galbeed arrintaasna loogu dambeyn doono gudoonka saddexda qof ee kaliya ayaa la sheegay
in amarkan uusan saameyn doonin kuwaas oo kala gudoomiyaha baarlamaanka waxaana sababta la sheegay waa gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha iyo shakhsiga kale oo la sheegay in maamulka u gartay inuu ka hadli karo xaaladaha ka jira koonfur galbeed wasiirada koonfur galbeed badi ma bixiyaan wareysiyo iyo xaaladaha ku saabsan deegaanada koonfur galbeed waxaana la sheegay in hanjabaado xilka qaadis ay kala kulmayaan madaxweynaha waana sababta keentay in badi aysan kasoo muuqan fagaaraha warbaahinta ama ka hadlida xaaladaha ka jira deegaanada maamulkaasi amarkan kasoo baxay bilo ka hor markii xilka laga qaaday wasiirkii warfaafinta ee koonfur galbeed ugaas xasan waxaa la sheegay markaa waxay ka dambeeyay madaxweynuhu uu dalbaday in si aan codsira wasiiradiisa loogu duubin aysan wajin fadeexado dhanka baahinta internetka waxaa la dalbaday dhammaanba wasiirada iyo xubnaha kale xildhibaanada inaysan ka hadli karin warbaahinta wareysin ay bixin karin koonfur galbeed ayaa wajahaysa xaalad amni darro tii ugu xumeeyay dhibaatooyin dhanka bini'aadanimada ah oo deegaanada koonfur galbeed ka jira sidoo kale maamulka ayaa la sheegay inuu saameyn weyn oo dhanka dhaqaale xumida ay soo wajahday markii al-shabaab ay kordhiyeen weerarada ka geysanayeen deegaano kamid ah gobolkaasi Baay dadka koonfur galbeed ayaa rumeysay in madaxweynaha maamulkaas uu yahay nin kaliya talisa waana sababta keentay in badi wasiiradu ay cabsadaan sidoo kale waxaa la sheegaa in Cabdicasiis Laftigaran yahay shakhsi aad ugu xiran saaxiib dhowna la ah dowladda madaxweyne Farmaajo hagaag daawadayaal warbixintan ay ugu dambeysay wararkeena maanta waa dhageytaas